wanaagsan daawadayaal waa barnaamij cusub oo maalinle ah oo aan ugu magac daray xogta dagaalka kagana hadli doono colaadda ka holcaysa dalka Ukraine taasoo laga yaabo inay ku sii fido qaaradda Yurub oo dhan amaba ay isu rogto colaad caalami ah oo bariga iyo galbeedka dunida dhex marta qaybtan cusub ee barnaamijka xogta dagaalka ayaanu ku soo bandhigaynaa warbixinta uu qoraaga dalka Turkiga u dhashay ee Ibrahim Karegol ka diyaariyay qisada markabka dagaalka Turkiga ee la sheegay in duqeynta khaldan lagu burburiyay iyo sida weliba ay dhacdadaasi qaybta uga tahay qorshe Turkiga lagu gelinaya dagaalka ku soo dhawaada barnaamijka Ibrahim Karegol waxa uu leeyahay gantaal ayaa si khalad ugu dhacay markab dagaal oo laga leeyahay dalka Turkiga oo marayay badda madow waxay isku dayayaan inay shidaan dagaal dhex mara Turkiga iyo Ruushka laakiin dhiig u daadin mayno barwaaqada Yurub darteed Turkigu weligii ma aamino reer galbeedka kumana kalsoona ma jiro waddan ku yaal booska Turkiga oo dhisi kara kalsoonida reer galbeedka sababtoo ah wixii aanu soo noolaynay ee aanu ku dhibtoonnay 10 sannadood ee ina dhaafay waxay la mid yihiin wax lagu qabtay 1000 sannadood duruuftii aanu ku noolayn Anadol 1000 sannadood ee ina dhaafay waxay ahayd dhibaatayn iyo colaad waxay haatan dib u bilaabeen qarnigan 21aad waana lagu soo celceliyay masiirkani isma bedelin ilaa maalintii aanu galnay Anadol tan iyo markii aanu la kulannay Baysantiinta sababtoo ah weli waxaanu waajahaynaa boqortooyadii Baysanta maalintii ay muslimku juquraafigan ama deegaankan soo galeen iyagoo awood weyn leh xisaabinta ka soo horjeedku way bilaabatay oo way socotaa tan iyo xilligaa weligood kama aanay quusan riyadoodii ahayd inay naga saaraan Anadol reer galbeedkuna may joojin inay noo arkaan inaannu khatar ku nahay iyaga hadda midtii la mid ah ayaa mar kale soo noqnoqonaysa Turkigu wuu soo toosay oo jidkiisa u gaarka ah ayuu u dhaqaaqay wuxuuna u guntaday inuu dhiso awood ka baxsan Maraykanka iyo Yurub inkasta oo Turkigu weli ka mid yihiin hay'adaha reer galbeedka iyo xulafada sida gaashaan buurta neetana haddana mar kale waxaa loo arkay khatar taariikhdii colaaduna way soo noqnoqonaysaa haatan qalalaasaha Yurub iyo Ruushka ayaa mar kale qarxay Yurub iyo Maraykanka oo faragelintan sameynayay shalay kuna dhawaaqay siyaasadii ahayd joojiya Turkiga ayaa si laba filaan ah u bedelaya mowqifkooda waxa ay bilaabeen inay adeegsadaan xidhiidhka xulafada NATO iyo daandaansiyo kale oo aan la rumaysan karin si ay Turkiga fagaaraha dagaalka u soo geliyaan oo ay u bilaabaan dagaal dhex mara Turkiga iyo Ruushka isla markaana ay joojiyaan colaadda hadda socota ee labada dal Ruushka iyo Ukraine Ibrahim Karegol waxa uu leeyahay taa iska daayay xitaa waxaa dhici kara dagaal caalami ah daacad uma noqon karno Ruushka ama Ukraine oo midna dhinaca ma saarayno dagaalka Ukraine waa qalalaase u baahan loolan awoodeed oo aad u adag kana fog qabsashadii Ruushka ee Ukraine waa xilli ay adag tahay in laga gudbo faafitaanka xogta maalinlaha ah lagana doodo xaqiiqooyinka dhimashada ah lagana fikiro halka ay dunida u horseedi doonaan colaadaha taariikhiga ah iyo kuwa juquraafi siyaasadeed doodahan waa inaannu u samaynaa buudhi ummadayada darteed juquraafigayaga darteed baddayada madow iyo mustaqbalkayaga xilligan kadib tallaabo kasta oo la qaadi karaa waxay yeelan doontaa cawaaqib xun ma waxaa dib loo bilaabay buu leeyahay Ibrahim Karegol dagaal aan dhammaanayn colaaddii bariga iyo galbeedka ka hadalka xasaradaha nukliyeerka hadallada sii kordhaya ee ku saabsan dagaalkii saddexaad ee adduunka kalsoonida Putin iyo cabsida Ruushka ee ku aadan amnigooda qaran waxay isu rogi doontaa dagaal reer Yurub oo dhan saameeya waar ogaada qaramadii midoobay hadda ma jirto hadda ma jiraan hay'ado caalamiya hadda ma jiraan heshiisyo caalamiya oo wadamada xakameynaya reer galbeedku hadda ma haystaan nidaam adduun oo dhinaca keliya leh waxaasoo dhan waa la soo dhaafay ma aha wax dib loogu noqon doono adduunku wuxuu u qaybsan yahay bari iyo galbeed qoraaga oo warbixintiisa sii wataa waxa uu yidhi Ruushku waxa uu sameeyay khalad weyn
waxa uu ku dhacay dabinkii Maraykanka iyo Yurub iyadoo cabsida uu Ruushku ka qabo khatar ku soo fool leh oo kaga timaada reer galbeedku ay xudun u noqotay qabsashada Ukraine laakiin Moscow waxay la ahayd in qabsashadu ay fududaan doonto Yurub oo sii kala daadanaysay Ruushka ayaa haatan dib u mideeyay sidoo kale waxa uu dib u soo nooleeyay gaashaanbuurtii NATO sababtoo ah duulaankiisa Ukraine waxay kor u qaadaysaa walwalka Yurub maadaama cabsidaasi u soo dhowaatay waqtigan xaadirka ah walaaca Ruushka iyo Yurub waa dagaal cabsidan iyo jahwareerkani waxay u horseedi karaan adduunka burbur weyn dagaalka Ukraine wuxuu isu rogi karaa dagaal reer Yurub oo dhan ah dhankoodana Maraykanka iyo Ingiriisku waxay sameeyeen daandaansi joogto ah si ay u huriyaan dagaalkan khatarta Ruushka ee badda Baltigu waxay cadaadis saaraysay dalalka reer Yurub sida Sweden, Finland iyo Britain lafteeda halistaasay damceen inay iska leexiyaan oo ay meel kale ku qaraxdo waxay isku dayeen inay ku qarxiyaan bartamaha Aasiya waxay la eegteen jamhuuriyadda Kazakhstan laakiin ma fulin kadibna waxay ku qarxiyeen Ukraine haddii taasi ku filaan weydo waxay colaadda u jiidi doonaan waddamada Lithuania, Poland, Romania iyo Bulgaria dhammaan xuduudaha bariga Yurub waxay noqon doonaan goobo dagaal laakiin ajandaha ugu muhiimsan ee Maraykanka iyo Yurub waa in Turkiga lagu soo riixo dagaalka iyo in la joojiyo maraakiibta Ruushka ee sii mara marinbadeedada Turkiga markaa waxay ku hawlan yihiin inay dagaalka ka beddelaan dagaal Ukraine una beddelaan dagaalka badda madow waxay og yihiin in marka taa la gaadho aanay suuragal u ahayn Turkigu inuu ka fogaado dagaalka oo uu khasab ku soo gelayo qoraaga oo warbixintiisa qayb ka mida ku soo gudbiyey talooyin waxa uu leeyahay badda madow waa inaanay noqonin goob dagaal oo u dhaxaysa Yurub iyo Ruushka ama goob dagaal oo u dhaxaysa bariga iyo galbeedka ama Ruushka iyo gaashaanbuurta NATO dagaalkaasi waa inaanu ku fidin gacanka Faris badda cas iyo bariga Mediterranean-ka sababtoo ah taasi waxay ka dhignaan doontaa halgan aan dhammaad lahayn Maraykanka iyo Yurub ayaa qorsheynaya dagaal u dhaxeeya Turkiga iyo Ruushka kaasoo ka bilaabanaya badda madow ilaa gobolka Qowqaaska qorshaha ayay hore maskaxda ugu hayeen ka hor intii aanu bilaaban dagaalka Ukraine waxay u sameynayaan habka tallaabo haddii ay ku joojin waayaan Ruushka dagaalka Ukraine waxay cadaadis badan saari doonaan Turkiga taasi way caddahay qorshaha iyo xisaabinta Maraykanka iyo Yurub waa Ruushku dagaal hala galo Turkiga Yurubna ha nasato ha ka dhex dilaaco dagaalku Ruushka iyo Turkiga adna dhinac u leexo oo daawo labadoodu ha iscunaan adiguna ha isdaalin dhinaca kale haddii reer galbeedku xakameeyaan Ruushka oo joojiyaan oo dagaallo aanay iyagu la gelin ku jabiyaan waxay u soo jeesan doonaan Turkiga oo ah tallaabadooda labaad waxa ay qaadan doonaan dhammaan hababka lagaga saarayo Turkiga hay-adahooda inkastoo Turkigu ka qayb qaato howlgallada NATO haddana waxaynu arki doonaa sida NATO ay u noqoto hub ka dhan ah mid ka mida xubnahooda oo ah Turkiga Ibrahim Karagol oo si gaara ula hadlaya dalkiisa Turkiga waxa uu yidhi waa inaad ka hortagtaan dagaal ka dhaca badda madow waa in uu fashilmo qorshaha dagaal lagaga dhex dhalinayo Turkiga iyo Ruushka waa in aad ku dadaashaan wax kasta oo aad ku joojin kartaan xabadda waa inaad ka hortagtaan ficilada gumaysiga balse ha noqonina cadowga Ruushka waa in la yareeyo daandaansiga Maraykanka iyo Yurub waa inay joogsataa barwaaqada sharci darrada ah ee Yurub ee lagu dhisay dhiigga dadyowga kale Turkiga oo ah dalka ugu horeeya dhanka ciidamada ee Yurub waa inaanu safka hore ku jirin Yurub ha istifaacdo barwaaqada sharci darrada ah ee lagu dhisay dhiigga shucuubta kalena ha dhammaato qoraaga oo si gaara uga hadlay markabka dagaal ee Turkiga waxa uu leeyahay gantaal ayaa si lama filaana ugu dhacay markab dagaal oo laga leeyahay dalka Turkiga oo maraya badda madow reer galbeedku waxay isku dayayaan inay ka cadaysiyaan Turkiga muddo 30 sanadooda waxaanu la kulmaynay dhibaatooyin amni darro hore umaanaan arag Yurub
oona dhinac taagan. taa beddelkeeda waxayba kala qayb qaateen safafkii cadowga ahaa ee ka soo horjeeday turkiga. xitaa waxay hubeeyeen furimaha argagixisada. ciyaartani ha dhammaato. turkigu waa inaannu sinaba uga qayb qaadan dagaalkan, waana inaannu muhiimad siin ballanqaadada reer galbeedka ee aan weligood la fulinaynin. khatarta ugu muhiimsan ee xilligani waa daandaansi ka socda badda madow. tani waxay u badan tahay sheekooyinka gantaal ayaa si lama filaana ugu dhacay markab laga leeyahay dalka turkiga. sidoo kale waxaa suuragala diyaarad ruushku leeyahay in la soo rido, ama gantaal neeta leedahay inuu ku dhaco maraakiibta ruushka. maraykanka iyo yurub ayaa hubaala inay isku dayi doonaan inay xiisaddaa sii kordhiyaan. xitaa hadday arrimuhu faraha ka baxaan xaaladahan oo kale, turkigu waa inaanu weligii dagaal yurub lagu difaacayo gelin. warbixintiisa ayuu qoraagu ku soo gebagabeeyey in 30kii sannadood ee lasoo dhaafay dunida islaamka lagu soo qaaday dagaallo waaweyn. malaayiin qof ay ku dhinteen oo la burburiyey magaalooyin iyo waddammo. haatanse buu yidhi, markii ugu horraysay dagaal ayaa ka dhacaya albaabka yurub.